Badan tani soma sodonkeeda dhameeya sakadeeda nadhiiba lagu sheegay janna way sugnaatay. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal asxaabteena cusub asxaabta kasii horeysay bulshaweynta Soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan bahda YouTube-leyda iyo social media-yaasha kale dhammaantiin walaalayaal waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. salaan kadib daawadayaal waa walaalkiin Qays. ramadaan mubaarak ayaan idin leeyahay mar kale. ramadaankiisa kale ilaahay nabad ha nagu gaarsiiyo. ramadaankan dhammaad ayuu marayaa, wax yar ayaa naga dhiman insha allahu. ilaahay nabad ha nagu gaarsiiyo ciidana. intaasi kadib daawadayaal maanta waxaa rabaa inaan idinla wadaago qiso aada iyo aada u xanuun badan, qisadii qoyska gacantooda isku laayay. qisadani runtii waa qiso very sensitive ah, waa qiso aada iyo aada u xanuun badan. saad ogtihiin bisha lasoo dhaafay April 30-keeda wiil Soomaaliyeed ayaa walaalihiisa ku laayay magaalada Kansas City gobolka Missouri ee dalka Mareykan. dhacdadaasi inta badan waxaa laga hadlay wiilka walaalihiisa laayay, walaalihiisa oo aada u da-yar 16 iyo 14 jir ah, oo xaafidul qur'aan masaajid at-taqwa taraawiix ka tujin jiray. arrimahaasi ayaa si weyn looga hadlay, balse waxa sababay wiilkaasi inuu laayo walaalihiisa cidda ka hadasha ama dadka ka hadla aada iyo aada bay u yaryihiin. arrintaasi ayaa rabaa maanta intaan ka ogahay ama inta isoo gaartay oo walaalaha runtii si fiican ka warqabo iga warameen inaan bilowgeeda qaabka wax u bilowdeen, sababta kalifta wiilkan inuu laayo walaalihiisa bilow ilaa dhammaad inaan idinla wadaago insha allahu tacaala. saad ogtihiin sida meelo badan aad ka maqasheen, wiilkani waxaa la dhashtay gabadha iyo isagaba aabahooda wuu geeriyooday. kadib adeerkood aabahood la dhashtay ayaa dumaalay hooyadood. daawadayaal kadib waxaa dhacday aabaha dumaale hooyada dhashay wiilka laayay walaalihiisa gabadhii la dhalatay inuu kufsado ama inuu faraxumeeyo. arrintaasi ayaa muddo soo socotay. xilligaasi wiilkan wuxuu jiray 9 sano ilaa 10 sano ayuu jiray. arrimahaasi muddo dheer ayay soo socdeen. gabadhii waxay u sheegtay hooyadeed, waxay ku tiri adeer sidan ayuu igu sameeyey, arrintan ayaa jirto. gabadha hooyadeed ayaa weydiisay ninkeeda ama ilmahan adeerkood. ninkii wuxuu ugu jawaabay waxba kama jiraan. hooyada dhexdooda ayay ku wareertay, gabadhana dhibaato ayay sheeganaysay, aabbahana wuu inkirayay. kadib hooyada waxay go-aansatay inay ka salgaarto arrintani, inay ogaato xaaladan qofka been sheegayo iyo qof run sheegayo inay kala ogaato ayay isku dayday. waxaa la sheegay xilligaasi hooyadani inay shaqeyso, magaalada ka shaqeyso. ilmaha adeerkoodana wuxuu ka shaqeeyaa taraagley waaye, jid ayuu saaran yahay. inta badan wuxuu ka shaqeeyaa magaalooyin kale. maalmo ka mid ah ayuu shaqadii kasoo laabtay, asagoo guri jooga ayay shaqo aaday. kadib waxay istiri bal guriga ku laabo. xilliga ay shaqada ka bixi jirtay iyadoo la gaarin ayay shaqada ka baxday inay ogaato guriga waxa ka socdo. guriga markay kusoo laabatay waxay aragtay gabadhii dhibaatada sheegan jirtay oo iyada ay dhashay, gabadhii oo la haysto oo la faraxumeynayo. qofka faraxumeynayo ama xilligaasi kufsanayana waxaa la sheegay inuu yahay gabadha adeerkeed, hooyadani ninka qabay ama ninka dumaalay. waa dhacdo aada iyo aada u xanuun badan. hooyada dhashay gabadhii dhulka ayaa la wareegay, waxay sameyso ayay garan waysay. ogaada wiilka walaalihiisa laayay bisha lasoo dhaafay xilligan wuxuu jiraa 9 sano ilaa 10 sano. arrimahan dhacaya wiilkana wuu u jeeda, hortiisa ayaa lagu sameynayaa wax walba. kadib maamadu waxay ku tiri booliis ayaan kugu wacaya, waan ku dacweynayaa. isla markii wuxuu ugu jawaabay haddii aad i dacweyso naftaadana ka samir, waan ku dilayaa ayuu ku yiri. maamadii way cabsatay, waxay korinaysaa ilmo agoon ah. waxay istiri haddii maanta la idilo anigoo nool ayaa sidan lagu sameynayaa, haddii aan dhinto ilmahayga dhibaato badan ayaa gaari doonto. way iskaga samirtay, ilmaheeda ayay u samirtay. balse
intay booliisku wici lahayd waxay go-aansatay inay soomaalida la wadaagto ama culimada la wadaagto oo ay tiraahdo dhibaatadan ayaa i haysato, booliisna ma u sheegi kari waxa la iga qabto. culimada ayay u sheegtay ama mas-uuliyiinta magaalada ayay u sheegtay oo Soomaali ah. kadib arinteeda waxaa laga dhigay arin laga sheekeysto, meelaha qaxwo lagu cabo ama meelaha fadhi ku dirir iyo maaragtay meelahaas lagu sheekeysto ayay noqotay. maamada waxba looma qabanin, hase ahaatee sheekadii ayaa suuqa la geliyey, meel walba ayaa la gaarsiiyey. sida ay walba caadan oo ahayd dhibaato haddaan maqalo waan ka sheekeynaa, balse qofka dhibaato ku dhacda cidna wax ma u qabanayso. kadib sheekadu waxay socotaba waxay gaartay ninkii asaga ahaa, ilmaha adeerkood ayaa maqlay sheekadii, suuqa ka maqlay. sheekadii markuu maqlay wuxuu ku yiri waad i ceebeysay, meel walba aniga ayaa laygu sheekeystaa, waxaa dadka u sheegtay inaan gabadha kufsaday anigoo gabadha kufsanin oo aan waxba ku sameynin. arintaasi ayadoo indheheeda ku aragtay oo looga waramin ayuu ku inkiray oo ku yiri waad inabtay, been ayaad iga sheegtay. sheekadii waxay aaday gacan ka hadal. kadib ilmaha ayakoo joogo, wiilka 10 jirka ahaa iyo gabadhii la kufsan jiray ayakoo u jeedo ayuu hooyadood ceejiyey. ilmaha hooyadood ceejin ayuu ku dilay. hooyadii ceeji iyo silic ayuu ilmaha hortooda ku dilay. kadib wuxuu sameeyey taraagiisa ayuu qaatay, shaqadiisa ayuu sii galay. muddo markuu guriga ka maqnaaday ayay ilmaha qayliyeen oo booliis la wacay. booliisku markuu goobta soo gaaray, ilmaha hooyadood oo meed ah iyo ilmahoo ku ooynayo, wiilka 10 jirka ahaa iyo gabadhii la kufsaday ayay booliis u imaadeen. booliis oo meel walba xiray oo baaritaan guriga ku sameynayo ayuu ninkii asaga ahaa booliis soo wacay. khadka booliiska marka laga qabtay wuxuu ku yiri waxaan ahaa hebel, waxaana joogaa shaqo, taraagley ayaan ahaa, halkaas ayaan joogaa, gurigayga waan soo wacay, ilmahana ma iga qabanayaan, hooyadoodna telefoon ma iga qabanayso, gurigayga ha la aado, ha la ii soo ogaado, faamilkayga inay wax ku dhaceen ayaa dhici karto ayuu booliis ku yiri. booliis marka horeba evidence iyo waxay guri ka baareen iyo waxay ilmaha sheegeen oo haysto ayuu soo wacay. isla markii meeshuu jooga ayaa la weydiiyey, meeshuu jooga markuu sheegay magaaladuu jooga ayaa booliis laga dalbaday. waxaa la yiri ninkaasi ha la soo qabto. ninkii bartuu jooga ayaa loogu tagay, waa la soo qabtay. markii la soo qabtay magaaladii ayaa lagu soo celiyey. wuu inkiray inuu dilay hooyada, balse waa lagu soo cadeeyey. cadeymihii kadib xukun ayaa ku dhacay, xabsi ayaa la dhigay. xabsi marka la dhigay waa la isku soo baxay. communitiga iyo culimada iyo qaraabadiisa waxay maxkamadda ka dalbadeen in damiin lagu soo daayo. lacag ayaa la bixiyey, damiin ayaa lagu soo daayay. kadib tigid ayaa loo gooyey, waxaa loo dhoofiyey dalka Soomaaliya. dalka Mareykan ayaa laga saaray. sideedaba qofka marka damiin lagu soo daayo lacag ayaa la dhigaa. qofku hadduu soo noqon waayo ama xabsi lagu soo celin waayo, lacagtaasi ayay dowladdu la wareegtaa. lacagtii ayay dowladdu qaadatay maadaama ninkii la waayay. qof walba wuxuu yiri manaan arag, dadkii damiin ahaan ku soo daayana lacag ayay bixiyeen, qofba dambi looma raacin. halkaas ayaa keeskiisa looga haray. inta maxkamaddu socotay iyo inta xabsiga ku jiray waa waqti dheer. ilmihii yaryaraa way soo korayaan. wiilkii 10 jirka ahaa wuu soo weynaaday, wuxuu ku soo aqliyeystay dhibaato iyo murugo aad iyo aad u fara badan. ninkii damiin lagu soo daayay oo dalka laga saaray, hooyada wuxuu ka dhalay 2 wiilal. labadani wiilal xilligaasi waxay jireen, mid 6 sano ayuu jiraa, midna 4 sano ayuu jiray. hooyadood ayakoo 4 sano iyo 6 sano kala jiro, midka kalena 10 sano jiro ayay waayeen hooyadood. agoon iyo rajo ayay isku darsadeen. wiilashii waxaa la wareegay eedadood, dugsi qur'aan ah iyo iskuul ayay geesay. ilmihii way soo koreen, waxay noqdeen ilmo very active ah oo runtii aad iyo aad u aqli badan. labadii waxay noqdeen xaafidul qur'aan. wiilka walaalihiisa laayana waxbarashadiisa wuu dhammaystay, qur'aankana wuu dhammeeyey. dhammaantood waxay noqdeen ilmo aad iyo aad u wanaagsan oo runtii aqli badan.
hase ahaatee wiilkii 10 jirka ahaa maskaxdiisa waxaa mar walba ku qufulan qaabka loo dilay hooyadiis iyo dhibaatooyinka uu markhaati ka ahaa. arrintaasi ayaa saameyn weyn ku yeelatay xagga maskaxda. hase ahaatee waa nin rag ah, muusan iloobin dhacdadaasi. wuxuu go'aansaday mar uun inuu aarsan doono qofka hooyadiisa dilay. qaabku hooyadiisa u dilay inuu u dilo ayuu go'aansaday, balse ninka dilay hooyadiis dalka ayuu ka baxay. beddelka uu dili lahaa adeerkiis ama ninka dilay hooyadiis, wuxuu go'aansaday wiilasha uu dhalay ama wiilasha ay isku hooyo yihiin inuu laayo ayuu go'aansaday. dhinaca kale wuxuu la socday dacwada hooyadiisa u dacwootay community-ga iyo culimada iyo Soomaalida ku nool magaaladaasi ayuu la socday. natiijada dacwadaasina wuu arkay, markhaati ayuu ka ahaa. wuxuu u arkay diinta islaamka inaysan ahayn diin sax ah, maadaama dhibaatooyin intaas la eg cidna wax u qabanin. walaashiis oo yar oo la kufsaday oo cadaalad helin, hooyadiisoo la dilay ayadoo waxba galabsanin. arrimahaasi oo dhan wuxuu u arkay inay cadaalad darro tahay. runtii waa sax, waa cadaalad darro. Soomaalida iyo diinta islaamkaba wuxuu u arkay cadowgiisa koowaad. wiilkii yaraa wuxuu ku soo barbaaray ciil aan la soo koobi karin. kadib wuxuu go'aansaday inuu aarsado. hadduu adeerkiisa joogi lahaa dalka ama wadanka joogi lahaa, adeerkiis ayuu dili lahaa. dadka yaqaano waxay sheegeen mar walba wuxuu oran jiray diinta islaamka waxba kama jiraan, waa feeg. dadka Soomaalidana ma ahan dad daacad ah ama dad cadaalad ka shaqeeyo ma ahan ayuu oran jiray. marka ugu dambeysay hanjabaadiisa la maqlay waxay ahayd bisha Ramadaan aan ku jiro bilowgeed. wuxuu yiri Soomaalida oo dhan waan laanayaa waxa iga hor imaado. masaajidkana waan weerarayaa, dadka masaajid ku tukanaya oo dhanna waan laanayaa, culimadana waan laanayaa ayuu yiri. hadalladaasi dadka kaftan unbay u maleynayeen, cid run u qaadatay ma jirin. habeenna ka mid ah ayuu go'aansaday inuu ka dhabeeyo hadalladiisa oo la rumaysanin. wiilasha walaalihiisa masaajid ayay ku maqnaayeen, taraawiix ayay tujinayeen. bisha Abriil 30keeda oo bisha Ramadaanna ku beegneed 18 taraawiix ayay tujiyeen. habeenkii ayaa la qaaday taraawiix. marka laga baxay xaafadda la geeyay. shaqsiga xaafadda ku dajiyay markii ay gaariga ka soo degeen ayuu ka dhaqaajiyay. awal waa la sugi jiray, imaamka markuu keeno wuu sugi jiray ilaa ay albaabka garaacaan oo laga furo ay gudaha galaan. balse waa qadar alle, maanta ninkii keenay ama shaqsiga masaajid ka keenay markuu dajiyay asagoo sugin horay ayuu ka dhaqaaqay. wiilashii waxaa halkaasi ku sugayay walaalkood ka weyn oo 20 jirka ahaa oo ciil la soo koobi karin ku soo koray oo xabad wato ayaa halkaasi ku sugayay. ninkii markuu dhaqaaqay meel unbuu ka soo baxay, xabad ayuu ku furay. xabadda wuxuu ku bilaabay wiilka 16 jirka ahaa oo la sheegay weliba wiilkaasi si gaar ah inuu u nacab yahay ayuu xabad ku furay. qoriga xabad ugu jirto oo dhan madaxiisa ayuu ku dhameeyay. waxaa la sheegay maskaxda wiilka inay ku faniintay meel walba, darbiyada iyo geedaha u dhow ku faniintay. kadib wiilkii yara ayuu u soo jeestay 2 ilaa 3 xabadood. markuu madax uga dhuftay xabad ayaa ka dhammaatay. xabadii intuu cabeysanayo wiilkii saddexaad oo la socdo ayaa albaabka garaacay. xoog ayuu u garaacay isagoo qaylinayo albaabka fura isagoo oranayo. albaabkii ayaa laga furay. wiilkii yaraa gudaha ayuu isku tuuray. kadib albaabka waa la soo xirtay. midka ka weyn oo 16 jirka ahaa mar hore ayay naftu ka baxday. waxay naftu ku jirtaa wiilkii yaraa oo 14 jirka ahaa. wiilkaasi yaraana wax yar kadib naftu way ka baxday. wiilkii wiilasha laayay halkaasi ayuu ka dhaqaaqay. wuxuu sii raadiyay Soomaalida kale ama qof walba oo ka hor imaado inuu dilo ayuu go'aansaday. waxaa la sheegay oo durbadiiba la isgaarsiiyey wiilkan inuu laayo walaalihiisa, kadibna sheegay inuu laan doono qof walba oo Soomaali ah oo ka hor imaado. magaalada meel walba ayaa la gaarsiiyey, guryaha iyo meel walba ayaa la xiray, socodka ayaa la joojiyey. waxaa la sheegay wiilasha markuu laayo kadib qofka ugu horeeyay oo ka hor yimid eedadiis ama hooyo ay qaraabo yihiin.
ilaahay muqaadirtiis xabad kuma ridin balse qoriga gacanta ku wato ayuu ku garaacay maamadii. halkaasi ayuu uga dhagaaqay. wuxuu sii raadiyey qof kale oo socdo ama qof kale oo dili lahaa. magaalada oo dhan waa la xiray. isla markii emergency ayaa la geliyey. waxaa la sheegay nin qori wato oo dad laayay inuu baxsad yahay oo magaalada ku jiro. booliiska magaalada oo dhan ayaa heegan la geliyey. jid walba booliis ayaa taagan. dad shacaba inay banaanka u baxaan ayaa loo diiday. howlgalkani wuxuu qaatay muddo 18 saacadood ah. waagii ayaa baryay. casarkii ayay isheleen asaga iyo booliis. weli qorigiisa wuu wataa. booliiska markay iska hor imaadeen xabad ayaa la isku furay. asagana xabad ayuu soo riday. booliiskana xabad ayay soo rideen. ugu dambeyn madax ayaa laga toogtay. wiilkii hoosbitaal ayaa loo qaaday. hoosbitaalka ayay nafta uga baxday. dhacdadaasi xanuunka badan qoyska gacantooda isku laayay sidaasi ayay u dhacday. waa dhacdo aad iyo aad u xanuun badan. ilmaha markay ciil ku soo koraan aakhirka inay dhibaato geystaan naftoodana dhibaato u geysan karaan waa waxa xaqiiqo ah oo aan murna la iska indhatiri karin. aad iyo aad baad u mahadsantihiin walaalayaal. qisadaasi xanuunka badan maanta intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa. fadlan haddaad ku cusub tahay channelka Qays iyo Raxma subscribe taabo, gambaleelkana furo si aad u hesho notification. tan iyo kulantideena dambe walaalayaal waxaan idin rajeynayaa nabad iyo nolol. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. عليكم يا السلام